محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاة بسم الله. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamaa dhammaan maamulayaashii macallimiinta meesha iskugu yimaadeen. waxaan maanta joognaa iftitaaxa madrasada almaxamadiya qaybteedii shanaad. waxaan meesha joogno waxa waaye meesha ay lagu waqfay oo ku duugan tahay. waxaan waqfay wax kale dad kale maan waa waalidiinteeda iyo dadka ay dhashay dadka sii dhaleen. marka waxaan rajeynayaa kuwii oo cilmi ku barto oo waxna ka faa'iido cilmi la barto waxa ugu fiican cilmiga diinta islaamka. waxaan rajeynayaa ardayda ka faa'iideysato cilmigan insha Allah. dhulkaan waqfan waxaan u rajeynaynaa in lagu faa'iideysto cilmi lagu kordhisto. dadkii oo waqfan waxaan u rajeynayaa in miisaankooda aqro oo loo miisaan insha Allah. waxaan si aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadka waqfay iyo macallimiintii iyo maamulayaasha madrasada.